marka haddii aan marka fiirino liigan FPL Somali waxaan rabnaa hadda markaan inaan soo kordhino group WhatsApp ah oo maamulayaasha ay nagala aragtiyadooda iyo wixii marka ay qabaan iyo sidoo kale isxasuusinta kama dambaysta suuqa oo kale waxyaabahaas oo dhan aan kula soo wadaagi doono oo aan hadda sameynay linkigiisana aan soo raacin doono halkan marka taasna la socda insha Allah groupkaas WhatsApp-ka soo diiraysan iyo wixii aragti ah oo aad bug ku soo kordhin kartaan ayagana waan soo dhaweynaynaa aad iyo mahadsantiin haddii aan fiirino marka ciyaar maamulaha toddobaadka ugu dhibcaha badan maamul lagu magacaabo Zakariya Colow ayaa ugu dhibca badan waxa uu keenay 95 dhibcood maamulahaasi wax jibaara muusan ciyaarin waxa uu ka mid yahay maamulayaasha ugu fiican ee toddobaadkan marka fiirisid FPL Somali League marka fiirisid maamulahan ayaa waxa uu ciyaaray afar difaac ayuu ciyaaray waxa uu sameeyay laba la wareegis ayuu sameeyay wax dhibic oo